السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داود يالكسو دوادا ورئيس عنو لي لاني رئيس الوزراء كحوغانكي هوري دولة الصومالية أهيدنا وزيركي أريمها دبادة حدنا نقطي حلبان كترسن بارلمانك دولة الفدرالك الصومالية مروة فوزية يوسف حاجي آذن مروة كسو دو تلفزيونك الصومالي channel آدي آد محمد هاي عبد الكريم waxaad bal nooga sheekaysaa intii aad wasiirka ahayd ra'iisul wasaare ku-xigeenkana aad ahayd jagadaas oo ahayd shagadii ugu sareysay ugu heerka sareysay ee qof dumar oo Soomaaliyeed qabato bal wax qabadkii iyo wixii kaaga hirgalay wallahi waqtigaas sanadii 4 bilood bay ahayd sanadka 4 bilood runtii inta badan waxaan safar baan ku jiray sababtoo ah wasaaradda markii aan laygu magacaabay anna guddi baan magacaabay 15 nin oo safiir waaweyn oo khibrad weyn u leh muddo dheerna soo shaqeeyay inay wasaaradda ila dajiyaan cagaha u dhigaan wax isbedel weyn aan ku sameeyno wadankana aan maaragtay dib u iibino yani caalamka ka soo dhaadhicino Soomaaliyada cusub saddex qaybood baan ku heshiinay qayb ahayd in horta sharciga wasaaradda la sameeyo foreign service loogi qayb ah in wasaaradii dib habay gudaha iyo dibadda lagu sameeyo oo la hagaajiyo ugu muhiimsanayd in cilaaqaadka dibadda la soo hagaajiyo sanadka labaad oo ahaa sanadka waxaan u qorsheynay in dibadda safaaradihii lagu sameeyo marka intii qorshahaasi ahaa iyo ka badan runtii waa qabanay wasaaradda waxaan u qabanay intaas oo dal baan wareegnay China Mareykan oo itraafkiina siiyay oo qabatayntii oo la qaaday security councilka 3 jeer aan tagay 3 bilood mar baan tagay jiray waxaanu Europe anigii madaxweynaha soo raacnayba oo 27 foreign ministers oo Europe iyo madaxda European Union kan tagnay Ingiriiska waadigii la socday oo shirkii ugu weynaa ee London laga dhigay Brussels kii ka weynaa ee 2 bilyan 400 milyan lagu ururiyay trust badan arrimaha igaad waa ogtihiino igaad ba wadanka maamuli jirtay yani si ma garanaysa igaad stabilization plan ba jiray waa bedelay oo waxaan ka dhignay national stabilization plan dalalka Afrikaanka aad iyo aad baan isugu soo dhawaanay cilaaqaadka Carabta saxiixyo badan oo international agreements aan soo saxiixay hadday tahay China hadday tahay Imaaraadka hadday tahay Kenya hadday tahay Ethiopia hadday tahay yani meelo badan Masar intaas oo foreign minister bayno yimi wali heeg oo dalkan ahaba yimi caalanka inta 35 safiir ba waqtigaas yimi oo ama safaaradii furtay ama Nairobi tagay keenay waraaqiya aqoonsiga kuma daam aad igad magacooday waxa tiri igad waa laga soo wareejiyay dibadejinta dalka laakiin wataa wali ku lug loo maxaan idhaahdaa jubooyinka markii maamulka loo sameeyay wadageed wixii madaxweynaha iyo kala raacay maxaan idhaahdaa igad ولينا لقطة كل جرا مركز إذا يدير كشافين تاس. لق هرت كل هرت إذا إجاد ممبر بينه كنا هاي. وده كان ينوح النقطة وده أركج حسه أي قعدت كويسه أو ما عرفت أي فرق كل شرطه. مركب عبسي بدن ودرال كشار كايس كشرت. إجاد أفريقيا يونيون كوبا. وأدركت دوري لما تكون أو عيدا أو شيء إن للشوجة. وحكينا وحاسب وحوي ورور. إجاد mandate keedii hore waxyaalo kale oo laakiin intii dambe security way gashay waana joogtaa waana la wada shaqeeyaa laakiin wax dhibaho hadda aan si gaar ah aan isu leeyahay bay igaadid ku haysan ma jirto si fiican wasiirada wada saaxiib baan nahay dalalka igaad todobada wasiirba wasaaraddeena waa la saaxiib lixda wasiir ee kaleba waa wax Suudaan basaad Suudaan hadda markii dagaalku ka dhacay igaad baan anigu kamid ahaa wasiiradii tagay dhexdhexaadinta u tagay igaad baan gacanta ku haysay igaad baan isu keentay igaad baa African Union ka tadris wasiirka arrimaha dibadda Ethiopia xoog saaray marka igaad way kula jiraysaa faraha dalalka aan deganayn ama dhibaatooyinku ka jira laakiin waaga waxay ahaaba jiray plan iyagu leeyihiin oo iyagu ku dajinayaan dalka annagana waxaan ka dhiganay kii annaga national plan keeni marka igad kala maarmayno waa wada shaqeynaa xubin baynu ka nahay okay waxa jirtay in markii igad la sameeyay Soomaaliya dalalkii saxiixay ama xitaa hirgelintiisa qaybta weyn ka qaatay bi ku jirtay maanta Soomaaliya sidii hore ma ah intii way ka tabar yar tahay intii way ka cod
daciifsan tahay markaas igada cusub iyo Soomaaliyada cusub sida iskula jaan qaadayaan ma kala hadasheen dawladaha oo ma tiraadeen waxaan markaan Soomaaliya ay negotiationkii hore galaysay iyo maanta isku mid manihin bal teemiska aanu ku wada shaqeynayno aanu ku wada soconayno dib ha loo eego waxaan wax adag ma aha horta igaad ra'yigeeda Soomaaliya lahayd صح view idea igad waa remember Hussein Tanzania la yiraahdaa lahaa barigii la sameeyay 73 ba haydan malaynaya sida Islamic Bank Islamic and ururka Islaamka aadan cadda lahaa Soomaalidu barigii hore waxay ahayd hal abuur bay lahayd waxyaalo badan idea firfircooni dheeraada laakiin waxa iska dhacay khayr badan baa dhacay marka igad anigu wasiir kharijiya dadka wasiir kharijiya dalalka igad wax la sharsada ma waa asxaab waa dad saaxiib la wada yahay waa dad la isfahmi karo marka golaa wada joogna shaqo qof walba dalkiisa iyo dantiisa ka hadla hadda taada u sheegatana waa lagu fahmay waa lagu garanaya tii Soomaaliyeed meesha magaysa of course inta la shaqeynayay kulli saaxiiban maalin dhan waa la murmaya waa la wada doodaya habeenkina waa la wada jooga waa la barita hadana la wada qorsheynaya marka igad wax laga dida maaha igad waa part and parcel of inaga isugu wacanba inay horto cidi inay deema garanaysa faragelin maaha daay maaragtay tiraado waaba ku taakulaynaya waayo inagu maynu degno heshiino waxayna wadano oo dalkeena horumarkiisa ka shaqeyno Ethiopia Kenya Uganda hatta daragto Rwanda hatta daragto South Sudan ama Sudan dalka xilkay wada galeen inagana wali waa layna kala celinay waxa ku tartamayna misaal dareere bal bisay dareere tuula la gubay hebel qof waayana la gowracay dadna waxay ku tartamayaan goormaan gaadhaya qolada ugu horeysa dhaqaalaha korsad ugu horeeya noqonaya korontadayda intaas aan bixiya kilowaadkii goormaan intaas ka dhigaya dadkii saas u tartamayaan inana waxaynu ku jeednaa waxa inaga cidna dambi saarin inaga halkan isdhigna aan joogno iyadoo taasi jirta laakiin su'aashii aan ku weydiiyay oo ahayd teemiska igad iyo Soomaaliya maanta ku wada shaqeynayaan kii ay Soomaalidu barigii hore saxiixday ma aha intii Soomaalidu markay ay dawaqsanayd oo ay suuxsanayd ba teemiskan cusub la sameeyay renegotiate dib hadal ma fahmayso oo gaari ma jiraan Soomaalidaas waagaas hore ra'yiga lahayd keentay sida maanta Ethiopia igad ka tahay ama Sudan igad ka tahay ama Kenya ka tahay bay ahayd ya waxa jiray aan ku xusuusiyo adoo raali ah barigii dawladda Cabdullaahi Yuusuf inkastoo loogu cudur daari karo dawladda inay ku meel gaar ahayd waxa jirtay maruu wasiirkii arrimaha dibadda ee hore Kenya ugu cagajugleeyay hadaydan na dhageysan waxaanu idin saaraynaa xayiraad dhinaca socdaalka marka taas waxay ku tusaysaa in igad awood dheeraada ay u isticmaalayso Soomaaliya hadda ma jirto soo kula plankiba waa bedelo national stabilization plan baan ka dhignay waxa inaga soo go'ayeen gacan uu baahanahay waxaasaan u baahanahay cid kuugu cagajugleen karaysa maanta ma jirto dawlad rasmi ah tahay xubin kamid ah tahay waa la sameeyay todobada dal waa sameeyay maadaama aad tiri waxa in Soomaali ku dhacay Soomaaliyada sababteeda lahayd oo dad badan qirsan arrintaas inay run tahay haddana maadaama aad shaqada ka shaqeysay oo aad dhinacan kale soo aragtay maxaad isleedahay Soomaalida dhibaatada ugu darani way qabyaalada wax kala baa baarlamaanka ma qabyaalad ku dhisan adduunka ma la arkay meel qabyaalad lagu dhiso baarlamaan axsaab baa lagu dhisaa waa si talaabada loo baahnaa markan oo lagaga gudbayay imika watan asxaabtii la diyaarinaya shuruucda xisaabta la diyaarinaya waxa rajaynaya 2016 in ay noqoto man vote ahsaab lagu soo galo inaga waxa ina diray waa qabiil maxaa la isu diray maxay qabaa'ilku isu gubayaan oo isu leeynayaan maxaa tuulo hebel ugu duulaysa waa qabiil soo ma waxa jirtay xisbi aad barigi ururada siyaasiga ah xisbiyada loo bedelay Soomaaliland inaad urur samaysay maxaa kugu dhaliyay inaad wasiir ka noqoto yaasa ku yeeray Somaliland iyo Soomaaliya aniga waa isugu kaymad Somaliland iyo Soomaaliya waxa weeye dhageyso Somaliland iyo Soomaaliya markii hore mid bay ahaayeen laakiin maanta waa kala go'een Soomaaliya wada hadal waa Somaliland waxay tiri waanu goosanay Soomaaliya laakiin Soomaali badan baa taagan inaanay wali gooyin okay Somaliland waxay tiri waa goosanay at least leadership waxay leeyahay waa goosanay Soomaaliya shacbigana qayb baa waa goosanay Soomaaliya haddana wada hadal baa socda Ankara wada hadal baa ka socda
imaaraadka wada hadal baa ka socday ingiriiska wada hadal baa ka socday aan sugna waxay ku dhamaato soo garanaysid صح anigu sidaan horena u idhi haddana leeyahay Somaliland Foose Yuusuf Xaaji Aadan baana horena waanu laakiin hadalkaaga si Foose adoo raaliya wuxuu u dhacayaa inaad tahay qof laba wadan leh oo Somaliland ay wadankaagii tahay Soomaaliyan ay wadankaagii tahay laba wadan yihiin no dhageyso Soomaali iyo Somaliland international waa mid laakiin dadka Somaliland qayb kamid ah tiri annagu waa goosanay hase yeeshee wada hadal baa socda hadalkaasi wuxuu ku dambeyn doono adiga yaa ku yeelay markii inaad wasiirka noqoto dawladda ay Prime Minister Saacid baa ay yeelay Sheikh Sharif waqtigiisa baa xitaa la yeelay aniga oo waqtiga aan idhi ma imaanayo laakiin markan dambe ee dawladdii rasmi noqotay ee ay magaranaysaa haddaan Somaliland waxba wixii aan jeclaa ka qaban waayay Soomaaliya ka qabanaya isugu kaymid aniga soo garanaysid hadalka in badan baa la sii sarrifay in badan baa qolobta u qaar u tarjuman doonta anigu waa sidaan u idhi Soomaali waa mid Soomaali waa inay midoodana waa jeclahay wixii la kala tabanaya hal la isu sheego 10 milyan boqolaal milyan bay nagu hareeraysan oo mid ah qoomiyadaha oo afaf kala leh oo wax badan kala leh umada qaniimada Ilaahay inta leeg iyo dhulka inta leeg istaraatiijiyada la u siiyay أنا waxaan qabaa inay wadoodii hore lahayn jireen taariikhaha ku lahaayeen ay soo ceshadaan aad baad mahadsantahay waxa jirtay in loo magacaabay bangiga dhexe Yusur Abraar waa gartay Yusur way saasish eeda badanna way sheegtay arinta bal maxaad sidaan u sheegay in badan aan u sheegay in badan u faahfaahiyay Yusur Abraar aniga keenay personal mas'uuliyadda ana leh ana soo cusumay ana madaxweynaha u geeyay aniga xad ugu geysay inay shaqada qabato gabar Soomaaliyeed oo heerkaas gaadhay oo waxay kamid ahayd vice presidentska Citibank ee New York oo faraha badnaabay mid kamid ah mar noqotay wax lagu faano weeye gabar Soomaaliyeed oo heerka gaadhay in la dhiirigeliyo iyaduna inay dalkeeda u shaqeyso waxaanu ka sugaynay waxyaalo badan oo ay monitoring group-yadani waxaan qoraan inay wax ka qabato haday jiraan iyo haddaanay jirin ay cadayso Yusuf dardaaran dheer baana dhexmaray inay wax ka qabato hadduu corruption jiro haddii aanu jirin ay cadayso Yusuf afar bari oo qulay joogtay wadanka 7 week bay magacawnayd markii madaxweyne anigu golaha wasiirada ana maalinta madaxda ka ah madaxweyne Prime Minister ugu maqnaa ana wasiirada marka Prime Minister meeshii si hayay golaha ana keenay civigeedan qaybiyay wasiiradu waa aqbaleen waa la wada jeclaystay civigi waana gacanta loo taagay maalintan warqada u fax gareyn u dirnay Yusuf nogmay soo noqon waana diiday 6 week bay dabada wareegaysay mar anaga bay noo raacday Rome iyo aniga madaxweynaha iyo Brussels iyo London dhulkaas ay noo raacday ilaa Washington hatta maraan Canada tagay way sii raacday laakiin dhulka ku soo noqon waa kari weynay week ugu dambeeyay timay 7 Yusuf afar cishay 6 cishay wadanka joogtay migration kana waa laga heli karaa bankana waa la weydiin karaa afar cishay shaqo tagtay afarta cishay mid 2 cishay min half baabay tagtay mar ana subax bar u geeyay madaxweynaha barqadii dambe tagtay banka maalintii dambe waa loo tiriyay maalintii saddexaad baa loo tiriyay maalinta labaad waraqaa dhindhimana maalintii dambena waa bay dhooftay Yusuf goor ay musuqmaasuqan ay sheegayso aragtay okay adoo raaliya waxa tiri Yusuf ana u yeeray ogaa inay gabar Soomaaliyeed tahay oo heerka gaadhay sidaad sheegtay lagu faani karo ugu yeeray inay cadayso hadii ama uu musuqmaasuq jiro shaqada wada shaqada madax ka noqoto shaqada wada Soomaaliya qofkii aad sida u aaminsanayday sida kuugu amaanaa haday musuqmaasuq aragtay soo in taageertaan musuqmaasuq goorma aragtay su'aashayga aan ku dhameeyo in aragtaa anaga rabnay sheegto haduu jiro kulligii ila madaxweynaha ila qof walba waa rabay laakiin inay sugto aragto Soomaaliya maalin bay qof maanta shalo kale timay subaxan oo madaxweynaha u geeyay duhuradii bay xafiiska sii martay maalintii xigtay dadkay baratay waxaana loo sheegay iyo in loo tiriya la rabo la tirin kari way maalinta saddexaad baa loo tiri maalintii dambana in bay tagtay waana tagtay goormay aragtay file furtay goormay wax ogaatay dadkii warqadeeda resignation ka oo Soomaali badan ay akhrisay waxa ku magacoonaa 2 nin
Soomaalida waxay tiraahdaa beenaala nin dhintay iyo nin dheeraaday buu marhaati u qabsadaa moogtahay marka labada nin Muuse Ganjab iyo waxay ahaayeen Kamaal hadday wax sheegtay oo tiri labada nin baa warqada saxiix ugu yiri oo lacagtaas la rabay in la soo furdaamiyo ina daba gashaan oo ma yahay hadalka lama bedelo gabadhu waxay telefoonsiga ugu qasabtay account inaan furo waxay ila tahay mana tiri groupka ku tiri iyo Reuters waxay ila tahay account-ka lagu qasbay inaan furo in lacag lagu xadi doono saasa qoran ma fahamtay rabtida bixisay account-ka sheegaysay leedahay foosay ugu qasbaysay account-ka already wuu furaa waanigi ka cadeeyay home cable baad details-ka waraqan sidii markaa waraaqdaas ay aan ku magacaawna kadib waa iska tagtay afar cishay wadanka joogtay Dubai iyadoo sii socota waxa jiray محمد وراق وساعد وقري برايم مينستر كي هوري او ميل walba taala imika oo uu leeyahay lacag Iraq bixisay oo jaamacada Carabiga loo dhibay jaamacada Carabiga inaga qaadan leeyihiin ayuu warqad oo Abu Dhabi account ka furo oo ku shuba lacagta waxa amarka warqadda ku qoran assistant minister Maxamed Xasan oo BBC-dana ka cadeeyay in la yiri fur central bank kuna kula saxiixo si transparency loo helo loo ogaado waxa meesha ku jira loo wada socdo صح warqadii ayaa Abu Dhabi bank Abu Dhabi gudoomiyihiisa loo diraya laakiin waxa lagu cadeeyay bankan iyo waxa saxiixay marka Maxamed baa la diray lacagta qaad ku shub account-kaas ha kula saxiixay central bank iyada marka ku soo beegantay waqtigii iyada la magacaabay ahayd waa soo noqon weydi Soomaha marka wasiir waxa jiray madax maaliyadeed ma uu jiray wasiirku maqnaa marka la leeyahay Maxamed Tage wasiirku maqnaa marka assistant minister kii baa la yiraahdo adigu account-ka soo fur wax qoran وفاكتس جرا وحلا دفرية معها ما عندنا ديدي كرتو ريكورد كستان وزارة المالية ديالان أرماء دبد ديالان بس سنترال بانك يالان ومال والبنوية يالان هدا أواد بعد بالو شاعية ورقد الساعد أمر كاعي بحسب وزير كنت قدبي لحقت ينان فوزي أدور عليها إنه كهذه مثلا محل هذا جامعة عربتها شلمان روجرز لعقتها ولا هو سوى ده سوق ولا سؤاله ده هي قلد ندك هو كونفيس كرويان هديك عليه يسر باتري وحبي شاكته مسق ماسق باتري صح يسر كوري مسق ماسق عركتبا واربنا مسق ماسق اللي سو صاروا اوكي سؤال انكو ويدي iyo galaa jawaaba ku dhameeyo maanta cashuuraha lama bixiyo wadanka waa musuq maasuq meelo badan oo dhaqaale wadanka ka soo galaan oo ay yani ila dhaqaale wadanku leeyahay lama bixi waa musuq maasuq waxa soo dhan in la soo saaro la rabay yusuf markay imaaraadka tagtay waxay ahayd maray decision-ka afarta bari ka bacdi aniga horta New York jooga la igu yiri foosiya yusuf waa nadiidan tahay wasiirkii way soo wacay Dubai baan ku cadibanahay amarkii prime minister kan ku socda fadlan kaale la hadal ha noo timaade email baan marka u diray Allah ay barito waa iid baahay shaqaalii dawladda 3 bilood mushaar ma qaadan baa la yiri militariga iyo civilian-ka waa cadiban yihiin yusuf please u tag wasiirku ku sugaya la saxiix warqadda account-ku waa la fariiso ma warqaddan way taal email kan u diraya ka iigu soo jawaabtaan hayna oo ay leedahay waa nimanaya Dubai baan waa saxiixaya soo garan maysid yusuf afar bari bay joogtay Dubai markay xamar maalintii afraad decision bay gaadheen iska tagto si ay tahay bay sabab ay la tahayba annaga waxaan soo gaadhay monitoring group-kay taasi waa tii account-ka waa account-ka marka waxba kama jiro account-ka leedahay foosiya tiri anigu waxaan iri waa lagu sugayaa u tag laakiin prime minister-ka amray account-ka in la furo maxamed xasan wasiirkeedii buu wasiir ku xigeenkii buu ahaa yusuf horta marka musuq maasuq sheegayso kaasay koob ka dhigtay ka labaad shilma waa ku soo wadaa Shulman and Rogers waa loofen waa weeye loo yaro afar sanadood waxaan ka shaqeynayay dawladdan way ka horeysay Sheekh Shariif baa mar labaad la saxeexday Cabdisalaam hadliyaa uu saxeexay oo agreement-ka la galay World Bank waa loo geeyay World Bank waa eegeen waa sharci baa leeyahay waxana waa dawlad iyo loo yaradeedii wadankan waxa ka maqan maraakiib waxa ka maqan guryo waxa ka maqan diyaarado waxa ka maqan dahabkii central bank waxa ka maqan lacago waxna la xado dawladda la dhigtay waxna dawladdu lahayd oo lagu ilaabay wixii in la raadiyo madamba ku jira dambi kuma jira wixii aan ku dhameeyo Shulman and Rogers waxay maran report-ka akhrinayay $50,000 iyo 5% lacagta ay soo celiyaan iyo 6% lacagta ay soo celiyaan laba jeer baa la yiri way qaadanayaan
marka waa su'aasha aad tiri aad bad sax u tahay oo ahayd in hantidii Soomaaliyeed ee dibadda ku xanibneyd la keenahay dambi kuma jiro laakiin waxa dambi ku jira 12% boqolkiiba inay Shalman Rogers qaadato iyo cid kale oo la shaqeynaysa arinta bal wax ka dhig horta contract waxaan ku dawladii hore ayaa saxeexday laakiin dhageyso waxa lagu leeyahay inta way ka badnayd Cabdisalaan Hadliyaaba ka bedelay oo mar labaadka markuu saxeexayo isagaaba ka dhibay nimankan waxa lagu leeyahay dadkii dawladii hore ku leeyahay lacag inta ka badan inay qaataan kay dawladda iyadana timi oo qaybta marka saddexaadkii anigu finance ministerkii ma yahay anigu central bank saxeexay ma yahay negotiation kan ma ogi cid gashay iyo cid la gashay laakiin waxaan ogahay markii loo geeyay international auditors New York jooga iyo World Bank in la yiraahdo contract dawladda waxay ku heshiin karaan 20% waxay ku heshiin karaan laakiin ma waxay ku heshiin karaan way ku heshiin karaan aniga marka legal laakiin adoo qof Soomaaliyeed muwaadin Soomaaliyeed ah ogsoon maanta dhibaatada iyo faqriga Soomaaliya ka jira heerka uu gaarsiisan yahay raalli ma ka noqon lahayd in 12% hantida Soomaaliyeed ee maqan ay Shalman Rogers qaataan dhageyso su'aashan aad weydiinayso waa irrelevant aniga haddaan saxiix ilaa su'aashan weydiin lahayd anigu saxiix waxaan ugu imi baan ku haboonayd lahayd baan ku ma saxiix lahayd ma oran karo way haboonta dadkii ku shaqo lahaa marka analysis ku sameeyeen waxayna waa legal aniga marka kama jawaabi karo su'aasha iga taa inaanay haboonayn wad diidi kartaa inaad ka jawaabto su'aasha laakiin inaanay haboonayn yusurna inay diido ay ku saxsaneed waxa marxaati u noqon kara sida muuqata intaanu aragno dawladii marka way ka baxday contractii Shalman Rogers bishan sanadkan ku jirno bishii May baa la joojiyay contractii inay dood marka haday sax tahay lama joojiyeen soo ma waxa su'aashaada si kala u dhig aniga waxa weeye anigu foreign minister baan ahaa sax waxaanu imi contract central bank iyo ay saxeexdeen finance minister oo negotiation kiisa ogay oo shaqo ku lahayn oo waliba aan ogaa in waliba laga sii dhimay waxay markii hore loo qoray dadkii hore u saxeexeen Shalman and Rogers markaan eegay reportkii World Bank markaan auditors baa la keenay xitaa international oo New York laga Shalman Rogers bay ahayn nimanka la keenay ma ahayn aniga weydii company kale waa reportka majkobra qoray maxaa ka maahan Shalman Rogers qoran laftiisa wana ma iyagu waa lawyers fam loo xil saaray inay hantida maqan raadiyaan xaq baan dawladdu u leedahay waxeeda inay raadiso ama Soomaaliya u dirato ama international lawyers u dirto taasi dambi ma aha cid walba way eegtay Shalman Rogers madam buuqeeda hadda batay ma saasay mala dawladdu ma hadda kuma jiro laakiin waxay u gaareen go'aankaas central banku malaha inay buuqaas ka joojiyaan laakiin anigu waxaan ogahay Yusur waxay sheegaysaa waxba kama jiraan Yusur farcishay wadankan joogtay Jabra wuxuu yiri bay tiri Jabrana waa nin faasita ilaa 4 sanadood muddo ah reportyadiisii oo dhan waa la hayaa wuxuu qorayay Eritrea waxba kama qoro wixii loo diro cunaqabataynta iyo hubka dabagalkiisa madna Soomaaliba account furatay iyo Soomaaliba halka taageeray waxba ka hadlaan waana laba su'aalood baa lagu weydiiyay Nairobi la ii sheegay ninba ku yiri maxaa waxaan kugu kalifaya wuxuu aniga shaqadaydu waxa weeye dadka inaan dilo waan hayaa inaan anigu dadka magaca ka dilo waa shaqadayda nin kale ku yiri yaa warka ku siiya wuxuu yiri masalati koob shaahan bixiya markaas ay waramaan Soomaalidu qofka markaad wax ka sheegayso anigoo kale marka wax ka sheegay inuu yimaado i weydiiyo inaad waxaasaan maqlay maxaa ka jira laakiin Yusuf waxay la tahay in wax la hadi doono horta arintan UN-ka oo adiga kali amahanad mas'uuliyiin badan oo Soomaaliyeed ka qayliyeen UN-ku marka ay mushaarka bixinayaan oo ay development programs-ka Soomaaliya faraha badan ay ka wadaan ay sameynayaan run bay sheegayaan marka ay musuqmaasuqa iyo lacag baa la xaday sheegaana been bay sheegayaan bal labadaas ku kaay qabatay maadaama nimankan idinka media dabagala oo research sameeyo oo baara laakiin mid baa ku sheegaya wadankani waa reer baa ayaa ku leh lagulama dhaco dadka kale waxaas Soomaalidana waa yani sidee bay u dhacday deputy prime minister ama madaxweyne ama prime minister ama minister in la yiraahdo waxaan u maleynaynaa inuu rabo inuu xado waa maxkamadaha wax la isku taago 12% hantida dahabka maraakiibta lacagta dhulka Soomaaliyeed ee dawladii hore ka xayirnaa
in la qaato meel I think report waan arkay anigu contract waan akhriyay koobi tobanku waa lacagaha ay keenaan 5% meela iyo 6% meela waxa haboon su'aasha inaad weydiiso dadka la weydiin lahaa laakiin adiga qof mas'uul ah oo Soomaaliyeed oo hooyo Soomaaliyeed ah miyaanay ku muuqan inay khalad tahay koob ma igu muuqataa laakiin mas'uuliyadeeda ma lihi anigu mana saxiixin waan arkay aniga waxa dhigayso waxa weeye imka foreign minister ma joogo finance minister kina soo ma joogo waxaan maqlaayay xalane oo la wareysanayo Voice of America waxba la xaday war waxa la xaday ma xagee yaalaan goorma la siiyay waxa la xaday buu war waxana waxa weydiisan auditorka wadanka auditor buu leeyahay wasiirka maaliyadda weydiiya central bank weydiiya laakiin qof kasta oo meel maraya hadii la yiraahdo waxbaad ka ogay aniga magacayga madalan wiiga waxa cusub waraaqa markii aan shaqada qabtay la yiri intaanu shirnay la yiri nimanka loo fahamka waa inay dalalkay tagayaan laga ogaadaa oo ahayn dad iska socda ee waa inay dawladda inay ka socdaan la ogaadaa wada waraqaha loo qoro foreign minister radii on Kerry Mareykanka iyo Switzerland iyo u qoray Talyaaniga iyo Faransiiska leena nimankaas anaga inaga socdaan waraaqiba hadda ayaamaan website ku jira foosoo ku lug lahaydo wataas waa ka saxiixeedi waa warqad caadi oo leeyahay dadkan anaga inaga socdaan yaa sameynaya safaaradaha hadana safaarad baa warqadeedii ku dhiganta arkiifeedeedii laga soo saaro website-ka la gelinaya marka waxa weeye media-da waxa laga rabaa qodqod kaliya ma aha yes media-da waxna way saxdaa qodqodka waxbay ku saxdaa waxa laga rabaa waxa sax ah ee positive runta ina sheegtaan qodqodka kowda iyo iscasilaadii yusur marka la isku daro soo 12% hantidiisa ma baqan wala tibad ku wareegaysa waxay muuqanaysaa in maxaan idhaahdaa haday wax sax ahaayeen finance ministerka weydiiyay central bank su'aalahan kuwa ay weydiiyay aniga hay weydiiyay adigu ko ka siman arkaan aniga hay weydiiyay dadkii saxeexay iyo dadkii ku shaqo lahaa waxa la wax ka jira iyo wax meel yaaltoona ma ogaanago laakiin maadaama adiga foreign minister baan ahaa waraqaha aan gudbiyay waraqaha sheegtay waan arkay waxa ku qoran in madaxweynuhu ku fasaxay ama amur kugu siiyay marka taasa adiga lugta nacam waa caadi imisa agreement baan saxeexay imisa warqad baan weydiiyo taas baa loola jeeday inaad adigu dawlad tahay ma qaar baa qoraya way qorto foreign minister baan of course warqadan loo qorayo secretary Haig ana saxeexaya warqada loo qorayo Kerry ana saxeexaya cid kale ma saxeexayso marka waxa weeye loo faham xaq bay dawladdu u leedahay taayaan dambi laga dhigin waxan baa soo haray waxa baan ku leeyahay ka badneed waaba la yareeyay يا ودولدي hore waa ka badnayd lacagtani laakiin in xoolaha Soomaaliyeed la soo celiyo guryaheeni la soo celiyo diyaaradii la soo celiyo maraakiibteeni wadanku uu baahan yahay waxayna goorma la doonaya hadaan imika la doonin waxayna waa in la soo celiyo taas xaq baa ama iyaga ha noqdaan ama cid kale ha loo diro ama Soomaaliya loo diro xaq baa loo leeyahay in la doono dadkii dambi taa ka dhigay aad waxa jirtay arrin kale oo iyaduna maxaan idhaahdaa baryahan dambe soo cusbaanaatay oo badda ku saabsanayd xuduudeynteeda balta iyadana badana waa lagu gartarayahay badda Soomaaliyeed maanta soo gacan gashay baddeena sunta lagu qubi jiray kalluunkeena inta la dabto dawladaha fogee India xagga inaga xiga la geeyaa lagu transit looga dhigaa lagu qasaacadeeyo lagu miisaama lagu cashuuraa inagana waa la inaga xaday 1 milyan iyo 4.8 square kilometers oo bada khayraad aynu leenahay petrol ku jiro oo kalluun ku jiro oo wax kasta ku jira waxa adduunku ka noolaaday simple inaga isku haysana badii baa la soo wada qaaday badii baa la eegay badeena maanta soo gacan gashay Kenya damacday dhinac inay tiraahdo annaga leh 82 baynu badeena inagu ataysanay sheeganay dalal badan oo Europe kamada inaga ka horeynay oo qolada UNCLOS ee New York joogtay badaha ee UN-ta aan faalkeena geysanay iyo qiyaasta badeena inta ahay idinaankii baa mar labaad la geeyay si preparasaaniya loo geeyay somehow dagaaladan iyo burburkan iyo waxba kala qarsoomay New York markii 3 jeer oo tagay Security Council-ka bar walba waxaan soo maray UNCLOS ana iskay soo xilqaamay waan ogaa waxa buuqa ka taagan mar waa ku xitaa difoosiya badda iibsatay waxaan oran jiray inta tusa badayada maxaa naga maqan maxaa naga qaldan
meeshayadii sun baa lagu qabaa kalluunka iyagii baa la boobaya caruuraha iyagii baa burcad beed lagu sheegaya cidla lagu laynaya we want to know badda iyada xuduudaha iyaga talooyin badan bay soo siiyeen gabar Soomaaliyeed maasha Allah looyarada joogtay oo imikana inaga nala shaqeysa talooyin badan baa laysoo siiyay talooyinkii baa madaxweynaha loo imid documentation aad u fara badan oo culus oo badan baan ka soo qaaday faylkeeni baan soo qaaday madaxweynahan hordhigay badeena waa inaan sheegano cabsida dadka aan iska dayno xuduudaheena waa inaan soo xidhno haddii kale dalal kale faylashoodii socdaan oo sheegtay oo loo saxaya okay marka badii waa laynoo waa finally waxa loo saaray khubaro ajnabi iyo Soomaaliya faylasheeni baa lagu noqday kuwii hore la soo helay badeeni maanta taynu lahayn oo sideedii ah halkeedii xuduudeeni baa la soo xiray imisa intaan lahayn 3,337 baynu leenahay mar baa la yiraahdaa 530 may waa dhararka taas waxaan ula jeedaa 300 iyo 200 ilaa 350 baynu leenahay oo continental shelf ka waa 1.84 oo square kilometers ah badeena Soomaaliya ha fahamto shakiga laga saaro dadka okay aan intaan ku ognahay aan isla fahano badda Soomaaliyeed markii dib loo raaco sharcigii 27 dawladii Maxamed Siyaad ay UN-ka u gudbisay dhul badeedka Soomaalidu wuxuu ahaa 200 oo nautical mile صح maanta barbosalkan cusub aad noo amaanaysaa wuxuu leeyahay waa 12 laakiin waxa Soomaalida la siiyay 200 nautical mile oo EEZ ah oo khayraadka ku jira oo ay Soomaalida u banaantahay laakiin 350 baynu leenahay ma aha 200 buu ahaa 150 kan 2009 mise 10 baa lagu daray oo wadamadii gudbiyay qaateen marka sidaba 200 oo nautical mile dhul badeedkii ahaa hadii lagu soo koobay 12 ay badeedu u baratay laguma soo koobin 12 200 baynu leenahay ilaa 150 kaasina waa continental shelf ما قلنا ما كمل كرت مراكبته والمر كران حق بقول لي إننا مرا بكل احترام EEZ إيو territorial water فرق واضحية of course أوكي territorial water كسومالي أو أدلك بدأ أي سومالي ذو ليه هاي أدلك لميت كأ لبي طبعا ما يلبى لقو سوكوي واقرت أنت لكن بريجه هو حي لبى بقول سيدابا لبي طبعا لبى بقول ويا لبي طبعا ما هاد لبي بقول وحى هو EEZ economic zone ka details technically aan galini waxa weeye dhageysto wax la isku haysta ma jira badeena halkii inta yar Kenya laga careysnaa inta Kenya sheegatay waa qadiyad kale taas maya dhageysto tan 350 baynu leenahay ila 350 baynu leenahay hatta ila soo qadaraynu sheeganay imika oo ma garanaysaa iyadana question kama karo Kenya xuduud inta laga didsana waa Kenya oo saa u soo yar laabtay baabkeeda sheegatay iyadoo inaguna aynu Kenya hore imka sheeganay waxaynu dheeraadaynu helmoye wax allaaliyo wax inaga go'ay ma jiro su'aal kale u gudubtay laakiin arintaas aniga ku wareysanay iyo dadkana dhageysanayo qiyaasay inay la mid yihiin ba kuma qanacsani in 12 mile ay 200 mile ka badan tahay badda 300 waxa laga dhigay waa EEZ-ka EEZ-kuna territorial water ka lama mid ah arintan kale ee Kenya soo galisayna waxay ahayd waxa la isku haystay deelinta Soomaaliya iyo u dhaxaysa Kenya ma toosba mise wala yar qaloocinaya marka Kenyatigu waxay doonayaan in dhanka Soomaaliya loo qaloociyo oo ay sida dhul badeed ku helaan Soomaalidana waa sida aad sheegtay waxay ku adkaysatay in la toosiyo taasi waa dhibaato kale ana waa 200k marka meen wadayna oo adna waxa la taalib ana waa 200 baan ku leeyahay kasi gudub su'aal kale aanu soo gudubno waxaad ku beertay baarlamaanka maxaa bal nooga sheekay oo waa ma rabin inaan dib u noqdo waxaan rabay inaan joogo Ingiriis baan ahay Ingiriiskan deganaa inaan dib u noqdo oo aan qaxooti dib ugu noqdo ma rabin wadanka inaan wax weyn ka qabtaa rabaa rajo weyn ma ka qabaa xisbi baan ku lug leeyahay hadda weyn oo soo socda wasiirnimadu ma aha waa shaqaale wasiirnimadu ma aha awood baarlamaanka ka awood badan oo aad tala ka bixin kartaa hadda gudida constitution-kan ku jira talooyin badan oo wax ku oolo oo wanaagsan baan ka qabanay intii constitution-ka wax badan oo kalena waan qaban karaa meelo badan oo noocyada qabo education-ka inaan waxaan ka tari karo ka taro wax badan oo ma garanaysaa sahlan oo aad iyo aad u sahlan oo wadankuna u baahan yahay jira inta education-ka aad ka sheegtay waxaan rabaa inaan raaciyo waadigi mar
hargeysa ka furay jaamacad jaamacadda hargeysa xamar jaamacad ma ka furtay aad waxaan u jeclay la foole inaan gacan ku yeesho inaan soo celiyo la foole gacan aad iyo aad waa waxyaalahan ku riyoodo in la foole la soo celiyo because macallimiin baa loo baahan yahay inaan gacan ku yeesho wasaaradda tacliintana weli kala maan hadlin laakiin iyagaa wada jaamacaddii muqdisho waa ta imika maasha allah la furay marka in aan soo ceshino wixii ma garanaysaa baarlamaanka markii la sameynayay fosiya hargeysa joogtay waa sax uu buuxay markaa timid xamar sidee kugu suurta gashay inaad gasho nin baa iiga degay markii wasiirnimada layga qaaday layga bedelay ama aan ka degay ama dawladda iyadii dhacday ninkii qoyska lawaad aragto qabaa'il baa lagu fadhiyaa ninkii aniga iiga degay wuxuu ahaa nin aan ilmaadeernahay dadkii markay tashadeen markii aniga wasiirnimadii laygu maxaad samaynaysaa meelaan u socdaa ma jiro waa jooga baa la yidhahda baarlamaanka aad gelaysaa marka baarlamaankana sida anisaan u jeclaa bay u dhacday markaa reerkiinii marka ninka Ismaaciil nin la yiraahdo Xasan Jaamac ayaa iiga degay oo si karaamo iyo sharaf leh sultaankina uu boobsiyay waraaqihii saasa kursiga la igu sharfay ana aad baan ugu jeclaa sidaan inaad sidaa ugu soo beerto waxaa jirtay koley Soomaalida waxay tiraan nin xantii ma mooga baarlamaanka Soomaaliya waxaa la sheegay markii la dooranayay xildhibaanada la xulay lama dooranay lacag bay ku tagi jireen meesha lacag adigu hadda ma ku tagtay maya kuma tagin lacag maalin walba xildhibaan baa la hadda Bashiir baa u dambeeyay Janaal Bashiir wiilkii walaalkiisa ahaa baa uga tagay anay naadeerkay baa iga tagay waxba lacag ma lacag baa lagu may lacagta lagu sheegay waa dacay 300,000 bay ku ibsataa la yiri ya waxyaalo badan oo kale aan ku qaban karaa 300,000 waxba kama jiraan waxaa jirta in xildhibaan baarlamaankaas ku bartay markaad kubad cusub baa ku bilaabatay xildhibaano badan baa lagu dilay magaalada Muqdisho arintaas ma ku cabsi gelisaa may hadda cabsi gelinayso ma ka tagay waa ka tagay lahaa may horta waqtiga banaadamka wada qof muslimada baana waa qoriyahay taa waan aaminsanahay maalin kasta maalin dhawidna waan ka hadlayay qof adag fadhi marka saada maalintii la dilay maalintii ka horreysay 3 saacadood baan aniga idin isku xubnay isaga fadhina sheekaysanay xildhibaankii ka dambeeyay aadan sheekh aadan kii ka sii horreeyay xayd yunam kulligood soo magacaw waa dadkan wada saaxiibka ahayna sheekaysanayna maan wala qof wala wuxuu isla adaa xiga hebel ma la dilaha goorma waa maxsoo dhacday saasay u dhacday allah u naxariisto qabrigii baa la tagayaa iyo salaadii taasad waa aaminay marka xabsida la sheegaya aniga shakhsiyan xaqayga ma marka inaad baarlamaankii imika ilaa 5 baa la marayaa sanadkan xildhibaan inaad sidaa isaga joogtaan oo sidii ari weer galay midba mar la soo jiido iska joogtaan maxaan ka qabanaa inaad wax qabataan maxaan qabanaa waa dawladda kula xisaabtantaan in maanka wax laga soo laga wax laga waa loo yeeraa dawladda kolba waa loo yeeraa wasiirada amniga waa loo yeeraa hadii jeer gudida ku shaqale iyo baarlamaan weynaaba waa la hor keenaa waa la xisaabtamaa laakiin amar qof wadkiisa waxa kale jirta waxa dhacday waxaan u maleynayaa shalay iyo maanta mid mooyaan inay dhacday waxa gurigiisa lagu weeraray xildhibaan ina Cabdiwali Qanyare oo la yiri waxa laga dhigay hubka marka kuwii aan hubka haysanay inay wadada ku dhintaan kuwii hubka haystay oo is ilaalin karayna la yiraahdo hubka dhiga hal leedin dilay bal wax ka dhig wasaaradda amniga weydiiso ashaas ma adiga xildhibaan baa tahay waxaan ku weydiinay maya xildhibaan in la weeraro waa khalad taas su'aal ma aha xildhibaan xasaanad buu leeyahay immunity buu leeyahay in loo yeero oo lala hadlo mooyo weerarkaas anigu waxaan u arkaa qalad soo garan maysid laakiin in waxa jirta xildhibaanada askar loo qaybiyay oo laba askari iyo hubkooda la siiyay oo laga bixiyo kharashka dawladdu itaalkeeda waa loodaysaa waxay qaban karto way qabanaysaa laakiin xildhibaanadu anoo xushmad u wada haya haddana way kala miisaan badan yihiin adoo wasiir ahaan jiray oo ra'iisul wasaare ku xigeen noqday iyo xildhibaanada qaar aan hore loo aqoon isku miisaan kama tihiin magaalada dhexdeeda isku sina la idin ma ilaalin karo soo uma baahnid ilaalo siyaada haddaan rabo anaa samaysanaya soo taa dawladii hubka ka qaaday Cabdiwali ka qaadaysa maya taas aniga kula qalad bay ahayd waana la ogaan doonaa waxay ku dambayso laakiin qofkii awoodi karaa inuu samaysto ciidan dheeraad ah waa idina ka horjumay laakiin dawladdu itaalkeeda 275 xildhibaan hadii min 2 askari loo sameeyay
dawladdu intaa ka badan ma qaadi karto waxaa jira hadal baryahan bilowday oo ah in baarlamaanku bal uu meel kale ku sii shaqeeyay inta magaalada Muqdisho nabad ka noqonayso ama amaankeeda dawladdu gacanta ku dhigayso taageeri lahayd arrintaa dawladdu waxa jirta Villa Hargeysa waxa weeye gudoomiyaha baarlamaanka halku ka shaqeeyo xafiiskiisa weeyaan waxa loo sameeyay hoolal waaweyn oo hadda lagu shiro by the way shaqada baarlamaanku ma aha in shirweynaha la isugu yimaado baarlamaanka gudiyaa jira gudi 15 gudi baa shaqeeya iyagu halkaas bay ka shaqeeyaan gudida joogtada ana waa jirtaayo gudoomiyaasha deegaanida magaalada baarlamaanku degan yahay dad badan bay cabsi ku abuurtay adigu dad geesiya tahay oo dadka dilkiisa aanad ka baqin qaar baa baqay xildhibaanada oo yiri hebel iyo hebel iyo hebel iyo hebla meeshii lagu dilay anna in la igu dilaa laga yaaba marka inta suuqa lagu dilaa dadka lagu dilaa baarlamaanka dhexdiisa tamayo magaaladan ula jeedaa hadda xaqay tagaan wada magaalo kale u guuraan baa magaalada u guuraan baa laga daba tagayaa I don't think so I don't think hadii la geeymaanta ma lagu dili lahaa ma Hargeysa wadagta inaan la geynayne laakiin magaaladii kale ee la geeyaba waaba halkan aba ciidan jooga lagu ilaalinayaa ama meel kale lagu ilaalin karaa ma qaba anigu in meel kale la geeyo halkooda ha joogan dadku halkaas aanu joogaynaa wixii aan qaban karana waa qabanaynaa intaad ogaatay intaad wasiirkayd waan gabagabaynaynaa waraysiga ana aad kugu mahad celinay intaad ogaatay intaad shaqeynaysay intaad xildhibaanka ahaydba maxaad isleedahay arrinta Soomaalida ku dambeynaysaa Soomaaliya waxay soo martay qarniyo 11 baa dib loo tirin karaa mar walba cirkay gaadhaa dhowrkii 1000 sano ama dhowrkii 100 sano arkay gaadha waqtigii Juuraanka waqtigii Axmed Gurey waqtigii Sayidka waqtigii Maxalisiyaad Bare haddana way burburtaa laakiin imika waxa la gaaray waqti electronic casri dadkii ay sidii hore ma awal farda lagu duuli jiro lagu moogtay dawladda imika Soomaaliya waxaan qabaa anigu wixii ka dambeeya 2017 xigtigan noqonayso taasaan qabaa tii hore wixii hore oo dhan inay ka kormarayso sababtoo ah waxay yeelatay ilaa 5 milyan oo qof oo qurba jooga oo baxay ama 4 milyan badhe meel kasta jooga oo professor jaamacada leh oo doctor leh oo engineers leh oo geologists leh nooc walba oo soo ilbaxay oo dunidii la soo qabsaday oo wadan jacayl ku soo abuurbay la way arka waxay soo arkeen sida loo yasayo iyo sida loo magaranaysa loo caqdadaynayo marka kuwa ay waxay dhaleen baa soo noqonaya wadankuna qeyr caadi buu qani u yahay haday petrol tahay haday uranium tahay haday badda tahay waxaan idhahdaa waa la cawriyaa dadka aan xeebta inta leeg 3,300 Afrikaba malayta u dheer weeye waxa soo kalluuna hawadeenan marka iyo dadkii oo yar 5 milyan baa jooga shana waa maqanta waxa imanaya oo wadankan wax ka dhigi doona hadii dawladaha iyaga ama anaga ama inta baarlamaanka ama ka dambe ama dawladda joogta ama tii ka dambeysaba ay si fiican u qorsheeyaan khaliijka wada ragtay ee qadar yaa dhisay Abu Dhabi iyo Imaaraadka yaa dhisay ajnabi baa dhisay wadanku waa maran yahay cidla markii laba qolo isdishana waa la sii qaxaa waana qani marka dad ajnabi in la soo qoro oo kontraagyo lagu keeno oo dhisadalka loo baahan yahay oo plan cusub loo sameeyo marka wadankan anigu waxaan qabaa rajo weyn in isbedel weyn oo gasgas ka noqdo saraad insha Allah aad baad mahadsantahay aad baan kugu mahadcelinayaa soo gabagabeynayna waraysigana daawadayaal intaas waxa inoogu eg waraysigii aan la yeelanaynay Marwa Fawsiye Yuusuf Xajaadan tan waraysi kan oo kala ku kulmayno السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.